doon ay saarnaayeen muhaajiriin isugu jirtay Soomaali iyo ajaanib kale ayaa ku qarimatay meel qiyaastii u dhow jasiiradda Lesbos ee waddanka Greece. Doontan ayaa ka soo baxday xeebaha dalka Turkiga waxaana dadka muhaajiriinta saarnaa ay doonayeen inay iska dhiibaan jasiiradaha Greece si ay u helaan maangeliyo. Inkastoo tirada rasmiga ee dadka doonta saarnaa ilaa hadda aan la helin xogtooda ayaa waxaa la helay meydadka ilaa 7 qof oo ka mid ah dadkii saarnaa doonta qalimatay. waxaana meedadka laga helay duleedka xeebaha jasiiradaha Mytilene iyo Lesbos. dadka muhaajiriinta ayaa inta badan ku nafwaayay xeebaha Turkiga iyo Greece inta ay ku jiraan safarkooda iyadoo xilligan lagu jiro xilligii qabowga waxaana sii kordhayay dhibaatooyinka ay la kulmayaan dadka muhaajiriinta. ciidamada xeebaha dalka Greece ayaa ku baxay baadigoobka badbaadinta dadkii saarnaa doontan qalimatay ee ku dhacday duleedka jasiiradda Lesbos. warbaahinta dalka Greece ayaa hadal hayay musiibadan ka dhacday Lesbos waxaana ay sheegeen inaysan tani ahayn markii ugu horeysay xeebaha jasiiradaha dalka Greece laga helo meydadka dad muhaajiriin ah. bilowgii bishii dhamaatay ee Febraayo ahayd markii ciidamada xuduudaha waddanka Greece ay si arxan darro ah kula dhaqmeen dad muhaajiriin ah oo xilligaasi doonayeen inay talaabaan xuduudda dalka Greece kuwaasoo markii dambe u dhintay qabow daran iyadoo dowladda Turkiga ku eedeysay falkaasi dhigeeda waddanka Greece. waddanka Greece ayaa marin oo qaxootiga iyo muhaajiriinta ku wajahan qaaradda Yurub. hase yeeshee Greece ayaa adkeysay xuduudaheeda tan iyo sanadkii 2015 xilligaas oo ay dalkaasi galeen muhaajiriintii ugu tirada badneed. hay'adaha u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa marar badan ku eedeysay waddanka Greece inay si xun ula dhaqmaan dadka muhaajiriinta ee ka soo cararaya rabshadaha ka jira dalalkooda isla markaana maangeliyo ka doonaya wadamada qaaradda Yurub.